give me fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back. Halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa Amsterdam radioga Soomaalida Holland waxaad maqlayseen heesku dhigiisu ahaa Waving Flags iyo halyeyga Soomaalida maanta Keenana wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii isboortiga iyo koobka adduunka waxaan idin soo hormarinaynaa goolashii ugu dhaqsiyaha badnaa ee la dhaliyo koobka adduunka intii u dhaxaysay 1930 ilaa 2006 goolashaasi oo lagu dhaliyay dhammaantood wax ka yar hal daqiiqo waxay kala yihiin sida tan 11 ilbiriqsi marka ay ciyaartu socotay aan idhaahdo waa isla markii la bilaabay ciyaarta ee la is-eegayay Hakan Shukur oo u dhashay dalkaasi Turkiga ayaa ka nixiyay dalkaasi koonfurta Korea iyo taageerayaashooda 29 June 2002 Turkiga oo ciyaartaas 3-2 kaga badiyay Koreada koonfureed markii dambe kaalinta labaad ciyaarto socota 15 ilbiriqsi 7 June 1962 Vaclav Masek oo u dhashay Czechoslovakia ayaa Mexico gool degdeg ah ku qaaday inkastoo markii dambe Mexico 3-1 ay kaga badisay kooxdiisa kaalinta saddexaad ee goolasha ugu dhaqsiyaha badan waxa ku jira Brian Robson oo England u dhashay 16 June 1982 ayuu 27 ilbiriqsi markii ciyaartu socotay gool ku dhaliyay England oo markii dambe Faransiiska 3-1 kaga badisay karag oo haddana saar ciyaartooygii ugu da'yaraa ee ciyaara koobka adduunka intii u dhaxaysay 1930 ilaa 2006 ayaa ah wiil u dhashay dalkaasi North Ireland oo lagu magacaabo Norman Whiteside waxaanay ahayd da'diisu markaa 17 sano iyo 42 maalmood ciyaar waqooyiga Ireland iyo Yugoslavia dhexmartay 17 June 1982 ciyaartaas oo ku dhamaatay markii dambe eber inkastoo ay badnaayeen ciyaartooyda 17 jirka ahayd ee ugu da'da yareed koobka adduunka waxaan haddana ku soo koobaynaa sidoo kale 17 jir ku ciyaaray Samuel Eto'o oo u dhashay dalkaasi Cameroon iyo Edson Arantes do Nascimento oo ku magac dheer Pele oo u dhashay dalkaasi Brazil ciyaartooydii ugu waaweyneed ee ka soo qayb qaadata iyagana sidoo kale ciyaaraha adduunka waxaa ka mid ah Roger Milla oo 42 jir ah una dhashay dalkaasi Cameroon 18 June 1994 Pat Jeming oo u dhashay isaguna North Ireland waxaanu ahaa markaas 40 jir koobkii adduunka 12 June 1986 iyo Peter Shilton oo 40 sano ahaa goolwalaha dalkaasi Ingiriiska 7 July ee sanadkii 2002 ciyaartooygii ugu da'da weynaa ee koobka adduunka u soo safta haddaba qarankiisa wuxuu noqday Roger Milla oo 42 jir ah una dhashay dalkaasi Cameroon dhinaca gooldhaliska haddaan diiradda saarno ciyaartooygii ugu da'da yaraa ee dhaliyay gool koobka adduunka intii u dhaxaysay 1930 ilaa 2006 waa kuma waa boqorkii kubadda cagta Edson Arantes do Nascimento oo adduunka oo dhan looga yaqaano Pele reer miyiguna way yaqaanaan ayaan filayaa Pele oo u dhashay dalkaasi Brazil waxaa la soo safay 19 June 1958 ciyaar Brazil ay isagu hor yimaadeen dalkaasi Wales isagoo 17 jir ah goolkaas iyo eber ayaanay ciyaartu ku dhamaatay waxaanu sidoo kale noqday Pele ciyaartooygii ugu da'da yaraa ee ku guulaysta koobka adduunka ee 1958 kii ugu da'da yaraa haddaan sheegay ma waxaad iga sugaysaan dhegaystayaal kii ugu da'da weynaa waa yahay waa kuma kulli waad garateen waa libaaxii Afrika waa Roger Milla oo u dhashay dalkaasi Cameroon
waxaanu dhaliyey goolkaasi 18 Juun 1994 mar ay Cameroon iska hor yimaadeen dalkaasi Ruushka oo dabadeed 6 gool Cameroon loogu maydhay. Dinosof oo u dhashay Talyaaniga ayaa isla noqday ninkii ugu da'da weynaa ee ku guuleystay koobka adduunka 1982 markaas oo ay Talyaanigu qaadeen koobka adduunka. dhinaca garsoorayaasha ugu da'da yaraa wuxuu ahaa Francisco Matteucci oo u dhashay dalkaasi Uruguay 27 sano ayuu ahaa 1930 kii ugu da'da weynaana waxa uu ahaa Roger Rider ama George Rider aan xalay ahaada oo u dhashay England 53 sano ayuu jiray 1950 marka uu siiriga afuufayay. waxaynu soo gaarnay dhageystayaal iminkana ciyaaryahankii ugu badnaa ee ka qayb qaatay koobka adduunka iyo ciyaarahaba waxaanu guud ahaan soo xaadiray dhowr koob oo kala duwan. Lothar Matthäus oo u dhashay dalkaasi Germany waana 5 koob oo kala duwan ayuu ka soo qayb galay. Lothar Matthäus 1982 96 94 iyo 98 ba uu soo taagnaa. Matthäus oo markii dambe ahaa kabtanka kooxda Jarmalka ayaa guud ahaanba soo saftay 25 ciyaarood oo koobka adduunka. waxaana ku xiga ninkaasi Antonio Carbajal oo u dhashay dalkaasi Mexico. waana badan yihiin ciyaartoyda ka soo xadiray koobka adduunka ee ku soo noqnoqday. waxaana si aad ah aan u sii xasuusanahay Paolo Maldini oo isaguna dhowr goor soo noqnoqday. ciyaaryahankii ugu goolasha badnaa haddaba taariikhda koobka adduunka 1930 ilaa 2006 waxaa xasuus mudan Ronaldo oo u dhashay dalkaasi Brazil waxaanu dhaliyay 1994 98 2002 iyo 2006 guud ahaan 15 gool. waxaana ku xigay isaga Gerd Müller oo u dhashay Jarmalka oo isna dhaliyay 14 gool. kaalinta saddexaadna waxaa ku jira Gilles Fontaine oo u dhashay dalkaasi France oo 13 gool koob kaliya isagu dhaliyay. dalkaasi Brazil ayaa haddaba noqday dalka ugu badan ee ilaa imika ka soo xadiray koobka adduunka. waxaanay ka soo qayb galeen markoodii 19aad ee ay ka qayb galaan koobka adduunka ee kubadda cagta. Brazil ayaa si toos ah final u timi 7 jeer 1950 58 62 70 94 iyo 2002 Brazil oo ciyaartay 93 ciyaarood waxaanay dhalisay 201 gool taasoo muujinaysa ciyaar wanaaga reer Brazil. Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa sidoo kale min 17 jeer ka soo qayb galay koobka adduunka ee kubadda cagta oo 19 jeer imika la dhigay. guushii ugu weyneyd ee taariikhda koobka adduunka intii u dhaxaysay 1930 iyo 2006 dalkaasi Hungary ayaa 11 Salvador kaga badiyay koobkii adduunka ee 1982 dalkaasi Hungary ayaa sidoo kale 9 kaga badisay dalka koonfurta Korea koobkii adduunka ee 1954 Yugoslavia ayaa sidoo kale 9 Zaire haruulaha ku dartay koobkii adduunka ee 1974 ugu dambeyn Germany ayaa sidoo kale 8 Saudi Arabia kaga guuleysatay koobkii adduunka ee 2002 sidii ninkii jiray yiri dagaalka iyo hunguriga waxa adag mararka qaarkood laandheeraha ciyaaraha iyo kaftankana waxa adkaan kara sidoo kale laangaabka. waxa caawa intaas inoogu eeg barnaamijkii sportiga ee radioga Soomaalida Holland halkan idinka